taasi oo kale maanta ayay qaar ka mid ah salaadiinta dhaqanka ee gobolada Awdal iyo Salal gaarsiiyeen deeq isugu jirta saliid iyo bariis xarunta agoomaha ee Kaalmo ee magaalada Boorama. Suldaan Ibraahim ee Jaamac Samatar oo isagu loo soo wakiishay deeqdan maanta la gaarsiiyay agoomaha Kaalmo ayaa waxa uu tilmaamay inay ka timid hay'adda samafalka ee Qobar Relief. Bismillahir Rahmanir Rahim wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maanta oo ay salaasad tahay waxa noo sharafa inaanu joogno xaruntii agoomaha ee magaalada Boorama ee Kaalmo halkaas oo aanu keenay raashin lacag ay soo dirtay Qobar Relief oo wakiil uga ahaa Maxamed Cismaan telefishinka Somali Channel noo soo diray oo Maxamed Baale oo ahayd $5,000 bay ahayd $3,500 waxa loo diray dibadda loo diray xaggii hoosti hay'ad baana qaaday oo dadkii wax qabay maalmihii telefishinka laga soo daayay ayaa loo geeyay $1,500 oo kalena waxa la yiraahdaa halkay ku haboon tahay geeya waxaanu galanay inaanu Kaalmo oo agoomaha reer Boorama iskuulka inaanu keenno maantana waxaanu u joognaa inaanu raashinkii agoomaha loo keenay aanu taqabalsiino mas'uuliyiintii dugsiga Kaalmo oo ay nagala joogaan Asiya iyo Wasiiro ayaanu ku wareejin doonaa haddii alla yiraahdo kaalmadaasna waxay ka timid Qobar Relief markaan kaalmada ku wareejino waxaan haddii alla yiraahdo uga rajaynaynaa intii soo aawisay arrinka fulisayna in miisaanka xasanaadka Ilaahay ugu daro inta kale ama qurba jooga ama dadka kale ee hadhow daawan doonana waxaan leenahay hal soo kaalmeeyo abaaraha dalka ka jira agoomaha ka jira meel walba maanta ninkii wuxuu dhiibto uba ka horeynaya adduunyada waa laga tagayaa waxaan leenahay hal soo caawiyo gaar ahaan agoomahan dugsiga Kaalmo ee Boorama oo aad iyo aad ugu baahan in loo keeno mucaawino ardayda yaryar sida agoomaha marka waxaan oran lahaa waxaan ku wareejinaynaa raashinka aanu keenay dugsiga Kaalmo mas'uuliyiinteeda oo nala jooga ayaa taqabali doona. Suldaan Ibraahim Dacad Yuusuf iyo Xaaji Axmed Miisaan Aaro iyaguna halkaas ka hadlaya waxay tilmaameen in carruurta agoomaha ee magaalada Boorama ay baahi badan qabaan isla markaana loo baahan yahay in gurmad ballaaran lala soo gaadho. Allahumma salli ala sayyidina Mawlana Muhammad sidoo Suldaan Ibraahim u sheegay waxa maanta farxad weyn noo ah annagoo soo booqanay Kaalmana keenayna raashin Kaalmo dugsiga agoonta Boorama Awdal waxaan ugu baaqayaa qurba jooga reer Awdal iyo reer Salal inay ka soo qayb galaan sida agoomaha kale loogu soo gurmado ee loogu keeno kaalmada madaxtooyada laftirkeega waxaan leenahay agoomuhu meel walba way joogaan xafiiska samafalka madaxtooyada agoomuhu meel walba way joogaan kaalmadiina iyo gacantiinu meel walba ha gaadha baan leenahay oo agoomaha waxay u baahan yihiin caafimaad bay u baahan yihiin raashin bay u baahan yihiin dhar bay u baahan yihiin ummadda waxaan ugu baaqayaa dibadda iyo xafiiska madaxtooyaduba inay ka soo qayb galaan oo kaalmo degdeg ay la soo gaadhaan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتصر سوق ابني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الذي واحد من صلاة سلطان إبراهيم ولما إبراهيم لما سلطان إبراهيم بعد ما وحكر قايلين وهالكن يجوا وقدر ما وجدت هو يرتاحي وحن لنا هاي هيك dadkii dibadda maxay ahayd soo barakacay abaartu arigu ka dhamaanay xoolihii waa loo gurmadaa aad baa loo gurmadaa agoomahaase waayadani waxaad qaadayo kuma arag maxay ahayd midiyaga wax ka soo baxayo agoomaha waxa taga Hargeysa aad baa loo dhaqaalayo agoomaha waxaan tagnay Gabiiley dawladda hoosaad ay tukalo dhaqaalaba qabaan siyaada waxaan tagay Burco oo Hamoud Foundation ay aad ay caawiyeen kolka sidaas uu dadkii iyo maxay ahayd jaaliyadaha dibadda ay ugu tartamayaan dadku ugu caawinayaan waxaan leenahay dadka dibadda jooga waxa ugu khayr badan oo ugu faa'iido badan
وآخرة وحقوق ترايا وهي أقول لسيا على الصوع ويوالين هاي إما كانت الساعة سالادين تاو شيء سدان فهم بالوسو عجوا وحويا عشان في وكايلا mas-uuliyiinta ururka kaalmo ee gacanta ku haya agoomahaasi oo iyaguna halkaasi ka hadlaya waxa ay ka mahadnaqeen deeqdan soo gaadhay waxaana ay tilmaameen in carruurta agoomaha ah ee ay gacanta ku hayaan ay weli qabaan baahiyo badan oo u baahan gurmad inta waan salaamaya waxaan salaamaya salaanta islaamka wada mahadsantihiin ilaahay baa mahadle waan niga gudoona raashinka aad u keenteen carruurta agoonta ee kaalme gobolkan Awdal Boorama meesheedu in badan bay jirtay runhaantiina hay-adaha WFP waxaaba nacaawin jiray WFP in ka 3 sano raashin ma siiso dhammaan agoomaha dalka oo dhan cid kale wax siisaa ma jirto hay'adaha dibadda ee Amid Foundation oo horeysa ayaa wax siiya inta badan marka wax imika joogta ah oo quutal daruuri oo helaan awlaadaas ma jirto waan idku mahadsantihiin qolada Quba Relief waxaan leenahay raashinkaasi waad ku mahadsantihiin aad soo dirteen إلهينا حق حسنات كايدين كسيو أن نجاب المريو وأنت يوم القيامة وحلا لنا أجادة أداتين شاليدي سللية أوضل وينكم مادسين سلطان إبراهيم تعر يسلطان شامع سلطان إبراهيم شامع سماتري حاجة الميزان سلا شرفت على أي نوجسو مجاجين هذه أدلوهم هالسنين وأنا إني فرنتا مر والبا وبتكاس عيد ما هيستان قارها قبل كان أوضل عيد الله عيد وبتكا أظن وحسي سحبية لكن مجرد marka wad ku mahadsantiin anaguna waan niga gudoonay wassalaamu alaykum wa rahmatullah asiya kamad bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa barakatuh hadalkii wala dhameeyay waad ku mahadsantiin sida wanaagsan taqbal police aqoontaada ay wax xasuusatay waxaan leenahay taaliyada kale ee Soomaaliyeed ama muslimiinta ah sidaas oo kale hawsoo xasuustaan agoomaha xabadeen ay u baahan yihiin sida salaadiinta baa aragta saartay raashin oo qofka bini'aadamka uma noolo waxay u baahan yihiin caafimaad barasho oo macallimiin isbiiriyaas oo fiican oo wuxuu dhigay u baahan yihiin ee quraanta iyo haday cilmiga kala tahayba la agoontaas way iska dhibaataysantay ilaahayna waxaan ka rajaynayaa ilaahay ummadda u sakhara oo u soo jeediyo dadka walaalahooda islaamka ah ee dadka dhibaataysan u samafala idinka salaadiinta mahad baan u celinayaa sida wanaagsan ee dadka ay u soo xasuusateen ee ugu keenteen waayo dadka oo siisaan way badnaayeen laakiin sida sharafta leh aad u xasuusateen aqoonta ee ugu keenteen bahda saxaafadda ee naga duubaya TV-ga Abdullah Ali Yusuf shabakada wararka Lugaay News magaalada Boorama